Cusbitaalka magaalada Naceelbe ee gobolka Sanaag ayaa maanta laga hirgeliyey in dhaqaale markaasi loo qalay bulshada ku nool magaalada Naceelbe ee gobolka Sanaag ay dad aad u tiro badan ay ka faa'iideysteen in dhaqaalistan markaasi firiiga ah ee lacag la'aanta ah. In dhaqaalistan ayaa cusbitaalka magaalada Naceelbe ee gobolka Sanaag waxaa ka hirgeliyey gruubka in dhaqaalista la shaqeeya Shiine ayaa markaasi ka hirgeliyey isla magaalada Naceelbe. Ugu horeysna waxaan wax ka weydiiyey bal in dhaqaalistan maanta sida firiiga looga hirgeliyey magaalada Naceelbe ee gobolka Sanaag bulshadeedana markaasi indhaha loogu qalay looguna cabiray ee lacag la'aanta ah ayaa waxaan ka weydiiyey mid ka mid ah dhakhaatiirtii markaasi qalliinkaasi indhaha ka waday cusbitaalka magaalada Naceelbe. bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam. alxamdulilah horta marka ugu horeyso ilaahay baan u mahadcelinaynaa. ilaahay waa ku mahadsan isku keenay si nabad anagoo nabad qabno iyo Ceelbe oo nabad ah. marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa dadkii maskax iyo maal iyo muruq geliyey suurtana geliyey in cusbitaalka quruxda badan ay ka hirgeliyaan degmada Buucayl ee gobolka Sanaag. marka alxamdulilah waan ku dhownahay insha Allah. qorshahayna wuxuu daaran yahay campaign indhaha ah oo waxaan kaga qabanay inaan ku soo marnay gobolka Sanaag oo dhan. waxaan kaga soo bilownay magaalada Garadag, waxaan ku soo marnay magaalada Ceelafweyn, waxaan soo marnay Ceelgaabo, sidoo kale waxaan soo marnay Baran. hadda saaka waxaan ka nimid Dhahar baan ka nimid saaka. haddana waxaan maraynaa Ceelbe, waxaa noo haray Hingalool oo gobolka Sanaag ka mid ah. marka mashruucaas oo loogu talagalay hay'adda Manhal ugu talagashay mashruuc indho-fiiqis lacag la'aan ah oo dad ilaa 250 qofood oo free ah oo qalliimada indhaha oo kala duwan loogu samaynayo. saasoo kale mashruucan wuxuu daaran yahay baaritaanada indhaha. saasoo kale waxaan wadnaa qalab casri ah oo muraayadihii oo halkood qofkii marka la cabiro isla markiiba qofkii uu helayo oo available ah muraayadii loo samaynayo. mashruucaasaan wadnay mashruucaad ballaaran. marka insha Allah magaaladan waa magaalo aad nagu soo dhaweeyay. dad badan baa hadda ilaa saaka ku qaabilnay. dad ilaa iyo dhowr iyo 10 qofood qalliin noqday hadda. qalliimadaasaan insha Allah caawa samayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. birina ayagoo fiican baan rajeynaa insha Allah aragooda Ilaahay soo celin doono. qorshaheena iyo mashruuceena waxaan marsiin sidaas waan ku dhownaa magaalada. jazakallahu khayr. ma jirtaa cid idinka caawintay qalliinkan aad dadka u samaysano? qalliinka aan samaynana hay'ad baa naga caawisay. hay'adaas oo fadhigeedu yahay waddanka Kuwait oo bixinaysa qalliimada qarashka ku bixi lahaa. dhakhtarkii Shiine Ilaahay khayr ha siiyo xajka ku maqan aan ugu yiray dadkii loogu soo faa'iideeyo deegaankii gobolka Sanaag. hadda waxa haray waa wax yar ilaa 30 qofood meelahaas haray oo magaalada Ceelbe Hingalool baa ugu dambeeyay. dadka intoodii badnood waa soo qalay alxamdulilah. mashruuciisa badneed xagaas ku soo dhamaaday. marka hadda waa dhamaystirkii iyo gabagabadii iyo magaalada Ceelbe oo nagu leeyahay cusbitaal baa laga dhisay oo hore mashruuc noocan oo kale aan loogu fulin. in aan soo eegno dhismaha cusbitaalka, inaan eegno sida loogu shaqeyn karo degmadan iyo deegaankan. alxamdulilah si fiican baa hadda ugu warbixin fiican baan ka helnay. insha Allah warbixintaas baan qaadi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. waan kula noqon doonaa hay'adeena iyo dhakhaatiirta insha Allah si loogu daro hadda kadib qorshaha joogtada ah ee gobolka Sanaag loogu talagalayo oo Ceelgaabo lagu imaanayo oo Baran lagu imaanayo oo Dhahar lagu imaanayo joogtada ayaa hadda kadib insha Allah ayada magaalada Ceelbe insha Allah hadda kadib diskaas waa lagu dari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. waan gartay waxaad ka warantaa iyada gobolka Sanaag soo celcelis ahaan intee qof ayaa indhaha u jeexdeen ama u fiiqdeen qofba soo yaqaan? wallahi baahida aad bay u badneed. inta hadda ka faa'iideysatay waxay ahayd dadkii intii aad u liitay baa ka faa'iideystay. dad intaa ka badan baahida u baahan laakiin wax heli kara waa jiray oo meel kala tagtagay ama meel dhakhaatiir kala tagtagay garay waa jiray. intii u baahneed baahida lahayd ilaa hadda 200 waxaan qalnay iyo 10 qofood. dad ilaa 40 qofood meelahaas hadda lagu haray. 40kaas insha Allah labadan magaalo inaan ku dhamaystirno ayaan rajeynaa insha Allah. waayo ugu dambeyntii waxaan ku diinayaa markii aad soo gaadheen gobolka Sanaag ma kala kulanteen wax caqabad ah bulshada? wax caqabad kala kulan ma jirto. aad baan ugu soo dhaweeyay dad deegaankeena ah oo dadkeenii meel hore aan ugu shaqeyn jirnay magaaladan baad nagu cusub Ceelbe ayadana maanta aad loogu soo dhaweeyay.
inta kale waa magaalooyinkeennii dee isbitaallo waxaa ku yaal manhala haddii noqon lahayd ceergaabo haddii noqon lahayd xarun weyn oo hadda laga furay magaalada baran laga furay haddii noqon lahayd dhahar haddii noqon lahayd xiingalo oo magaalooyin aad aan u shaqaynay oo kal hore iyo kal labaad mar ilaa 3 jeer meelahaas soo marmaray marar kasii horreysana aad buu u shaqayn jiray oo joogto routine loo mari jiray had magaaladan baa nagu cusub ceelbu ayadana waa maanta waan joognaa aadna waa nagula soo dhaweeyey soo dhaweyntoodana ku mahadsiiyeen odayaashii soo dhaweeyey iyo dadkii deegaanka aad buu mahadsiiyey ma rajaynaysaan ama kale kusoo noqotaan ceelbu oo saan oo kale mashruucaad ka insha allah insha allah magaalo fiican cisbitaalkeedu waa cisbitaal cusub ah bini'aadanka caafimaadka waa aasaaska noloshu ka ku jira caafimaadka nolol dad meel degan dadka meesha degan caafimaad inay helaan waa aasaaska noloshooda ka mid tahay alxamdulillah mar haddii aad cisbitaal yeesheen cisbitaalkaas baa waxuu saacidi doonaa insha allah in shaqooyin badan laga dhex qabto keliya aan ahayn indhaha hadda waa indhaha keliya dhakhaatiir kaloo badan baa imaan doonta cudurrada guuda kuwa qannimada baa imaan doona hadduu ilaah yidhaahdo dhakhaatiir badan baa keeni doona hadduu ilaah yidhaahdo insha allah magaaladan wax badan ka caawin doona hadduu ilaah yidhaahdo dadkii ka faa'iidaystay indhaqalistan ka socotay isbitaalka weyn ee magaalada Ceelbu oo saaka guryahoodii lagu soo ceshay kadib markii habeenkii xalay ahaa indhahooda loo soo qalay ay saakana wax ku arkayaan ayaan caafimaadkooda iyo si isha markaas uga arkayaan aan wax ka weydiiyey waxayna ii sheegeen inay markaasi si wanaagsan ishii xalay loo qalay ay haatan ay wax uga arkayaan salaam ayaa horta marka hore wariye cashuur waa la qalay ilbaa loo qalay isha horaa loogu qalay isla shiina u qalay tanna qola ka mida shiina baa qashay xalay fiidkii qashay tii kaydka ahayd marka alxamdulilah xalay way yar qandhoonta way xanuunsatay laakiin saaka way fiican tahay araggeeduna wuu fiican yahay dee natiijo waxay gadaalka keeni doonto mooyaane hadda aad iyo aad bay u fiican tahay ka war isha saak marka ma ka arkaysaa waa ka arkaysaa si fiican awl hore ma uga jirtay isha tan loo qalay caad baa saaraa tan loo qalay haa tii hore ma tan xalay la qalay tan xalay la qalay maya caad baa saaraa marka dalka magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaag oo weli xariga laga jarin ayaa si markaasi ku meel gaar ah ugu shaqeeya bulshadiisa tanna waxay noqonaysaa shaqadii ugu horeysay kadib markii intii la dhisay cusbitaalka magaalada Ceelbu ee looguna qabto bulshada oo markaasi firi ah waa Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaag.